السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دhowaada sida akademiya casharada taxana ahaa ee ku saabsanaa Flutter iyo Dart maanta waxaynu dhisi doonaa application news ah ama loogu talagalay wararka marka casharkan waxaanu ku dan leenahay inaynu soo akhrisano API-ga inagoo isticmaal doono website-ka loo yaqaan news API marka API-ga daatada ku jirta JSON files-ka ayaynu doonaa marka inaynu soo akhrisano inaynu marka application-keena waxa weeyaan HTTP request uu sameeyo oo daatada ku jira website-ka waxa weeyaan soo akhristo website-kan marka application-kan wuxuu ka koobnaan doonaa saddex shaashadood mid waxa weeyaan waa onboard waa page-kan waxa weeyaan marka ugu horeysa ku soo bilaabi doono kana wuxuu noqon doonaa marka waa meesha wararka aynu soo bandhigi doono marka war kasta ama news kasta oo waxa weeyaan API-gan website-kan ku jira ayuu doonaa marka inaynu ku sameeyno waxa weeyaan fetching waxaan isticmaali doonaa marka package runtii aad u fara badan marka news marka soo akhristo page-ka saddexaad marka lagu dhuftana wuxuu tagi doonaa marka waxa weeye waa detailska marka package runtii aad u kala duwan baynu isticmaali doonaa oo ay kamid yihiin JSON serializer wax loo yaqaano HTTP request state management marka casharadan runtii haddii ay kugu adkaadaan ama waxa weeyaan aad fahmi weydo fadlan waxa weeyaan comment-ka noogu qor meelaha waxa weeyaan kugu adkaada si aynu hadhow tolano casharo aynu uga diyaarino ama state management-ka ha noqdo ama casharo kale oo faahfaahsan oo HTTP API request-ga ha noqdo marka aynu bilowno hadaba waayo ugu horreyn waxaan ka bilaabi doonaa interface-ka aan ku sangaran doono application-ka wuxuu inoogu diyaarsan marka waxa weeyaan waa Figma file-kan laftiisa waxa weeyaan waxaad kala tegi doontaa description-ka ama xagga hoose soo dhigi doonaa marka application-ka desangarana news-ku saddex page ka koobnaan doonaa mid waxa weeyaan page ugu horeeya waxa weeyaan onboarding-ka loo yaqaan ama lagu soo dhaweynayo dadna qofku markuu yiraahdo get started wuxuu soo gudbi doonaa waxa weeyaan waa page-kan dadna page-kan waa page-ka ugu muhiimsan noqonaya waxa weeyaan waa dashboard-ka page-kan marka waxa weeyaan waana ka inta ugu badan shaqada ugu badan ku qaban doono isaga iyo kan laakiin ka baynta ugu badan waxa weeyaan hawsha ugu badan qaadan doona way marka dhammaan qoraaladan oo dhan wuxuu ka soo akhrisanayaa API-ga marka website ayuu wax weeyaan aynu arki doono ayuu ka soo akhrisanayaa mid kasta dhowtoona marka lagu sii dhufto wuxuu tagi doonaa marka waxa weeyaan page-ka halkan ku yaalo tagi doonaa marka qodobada inaan ka shaqeyn doono waxa kamid ah drawer side-ka marka lagu dhufto isaga waxba inay soo baxaan ma doonino buttonadana iska sign button baynu uga dhignay waxa weeyaan wax notification ama update oo sameynaya ma jiro search-na waxba kuma inaan xidhin casharada dambe insha Allah marka hadii search-ka loo baahdo ku xidhan doona laakiin muhiimadu ma aha iyaga muhiimadu waxa weeyaan sideeba APIs-ka wax weeyaan loo soo akhristaa marka ugu horeyn waxaynu soo akhrisan doonaa wax weeyaan website-kan isticmaali doonaa wax weeyaan ka soo akhrisan doonaa wax weeyaan API-giisa waliba waa website-kan ku yaalo yaqaan newsapi.org website-ka marka waa bilaash intiisa oo badani pricing-ka waxyaabaha dad click siiso pricing halka mid ka seegi doonta laakiin qaybta loo yaqaan waxa developer testing aad sameynayso waxa weeyaan si bilaash ayaad ku bilaabi doontaa laga dad business iyo advance aad u baahan tahay lacag baad bixin doontaa marka waxyaabaha bilaashka helaysa halkan ku siinayaa way website-kan kaliya wuxuu ka doonaya inaad hesho waxa weeyaan waxa loo yaqaano aad sameysato login aad sameysato si aad API key aad u hesho marka API news-ka halkan hadda tusaalooyinkan soo qaadano mesela waxyaabaad heli karayso ama aad baari karayso tusaalooyin waxa kamid ah all articles they mention in Apple tusaale ahaan shalay oo kale shirkadda loo yaqaan Apple wixii qoraale articles khuseeyay marka dad eegto waxa weeyaan tusaale ku siinaya waxa weeyaan marka JSON files-ka tusaale ku siinaya marka just inta badan API waxa weeyaan website sideeba wax weeyaan application-kaaga daatada ku jirta looga soo akhrisanaya marka inta badan waxa ugu caansan qaybta loo yaqaan waxa weeyaan JSON format buu kugu soo bandhigaya dadna format-kan news-kan ama wararkan aynu marka waxa weeyaan fetching baan soo sameynaa daatada ku jirta aynu marka waxa weeyaan ka soo akhrisanayna marka aad buu muhiim u tahay APIs-ka waxa weeyaan websites-ka waxa weeyaan ama application-kaagu inuu APIs ku soo akhristo mar badan bay marka muhiim tahay casharka faahfaahsan APIs-ka Allahumma salli ala Muhammad waxa loo yaqaan JSON serialization-iska waxaas dhan marka casharo details oo faahfaahsan ayuu marka insha Allah ka sameyn doonaa haddii fadlan aad xiisaynayso comment-ka noogu reeb haddii from fundamental ama basic aad xiisaynayso haddii si aad APIs-ka xoogaa ka gargaranayso waxa weeyaan horey uga soconaynaa marka kan waxa weeyaan waa website-ka aan daatada ka soo akhrisan doono ugu horreyn website-kan wuxuu ka doonaya waxa tagaysaa qaybta loo yaqaan documentation-iska dad click siiso waxaad helaysaa marka waxa weeyaan xogta ku saabsan documentation marka faahfaahin badan buu ku siinayaa news API waa simple HTTP request API weeyaan Allahumma salli ala Muhammad marka waxyaabaad ku baari karayso data publishable ku baari karaysaa source domain waad ku baari kartaa languages-ka waad ku baari karaysaa waayay
maxaan haddaba u baahan tahay get API key waa inaad botkan aad ku dhufataa marka haddaad kili ku dhufato get API key wuxuu ku geenayaa markaa already account haddaad leedahay API keyga markaa kan baa loo yaqaana haddaba API keyga waa maxay haddii documentationka aad timaado oo tiraahdo authentication haddii lacala aad doonayso inaad wararka ama waxa weeyaan faylasha yani aad uga baahantay website inaad soo akhrisato waxa laasima oo qasaba inaad leedahay wax loo yaqaan API key marka halkan waxa ku tusay saddex nooc oo wax weeyaan API keyga loo soo akhrisan karayo marka iyaga gooni baan ka warami doonaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano headeriska iyo waxa iyo period iyo waxa horeynu waxaan 10 details hadda xiiseynayso aynu insha Allah ka sameyn doonaa laakiin simple waxaan isticmaali doonaa marka API key way API key waa muxuu yahay API keygu waa ka kuu saamaxaya inaad website-kan aad xiriir la samayn karayso oo tusaale ahaan imika qaar waxyaabaha qaar wax laga yaabaa inaad meelaha website-da qaar inaan loo baahan matalan waxaan JSON placeholder kuwan wax weyn isagana waa API symbol marka wuxuu kuu soo akhrisanaya tusaale ahaan API symbol wuxuu ku siinayaa 5-6 qaybood oo kala duwan tusaale ahaan postiyo comments marka tusaale ahaan doonayaan inaan postiyadan oo kale aan soo akhristo marka kan waa website kale oo ka gooniya oo aynu ku eegi doono waxa loo yaqaan wax weeyaan markaan authentication aanad u baahnayn matalan kan baa timid click baad siisay halka markiiba waxa toos u helaysaa waxa weeyaan serverkaasi APIs-kiisi toos baad ula xiriiraysaa dadna dhaatadii markiiba waad helaysaa adigoo aan wax weeyaan wax authentication key aan ku weydiinin marka waxaad arkaysaa kani waa very simple casharada waxa weeyaan basic inta badan lagu sameeyaa laakiin waxa weeyaan isagoo advanced aynu isticmaali doonaa website-kan isaga waxa laasima inaad API key aad leedahay API code-kan waxa weeye waa code-kan oo kale ku siinaya markaad login aad samaysato marka waa laasim inaad haysato haddii kaloonad haysanin waxa weeyaan ma access gareyn karaysa oo tusaale ahaan waxaan gelayaa matalan halkan isagana waxa yaala waxa weeyaan wax loo yaqaano postman waxa weeye isagana APIs ka inta badan lagu tijaabiyaa marka insha Allah isagana gadaal binu insha Allah mar baynu sameyn doonaa laakiin tusaale ahaan haddaan idhaahdo plus matalan documentation markaas fiican markaad akhrido tusaale ahaan everything waxaan doonayaa shay kasta aan soo akhristo way hadaba qaabkan soo akhrisanayaa wuxuu ku leeyahay qaabka soo akhrisanaysa waxa weeyaan endpoint-ga aad u baahan tahay waa kan auto code requirement waxa ku ah halkan waxa ku dhigaya markasta haddii aad doonayso la xiriiro waa inaad API key aad haysataa way tusaale hadaba markaan sideen maxaa dhacaya matalan website-ka endpoints ku ilaa halkan everything ilaa halkaas soo qaatay waxa la copy dadna waxaan imid markaa meesha doonto kale hadda xitaa aad tiraahdo browser-kaaga dadna control v aad tiraahdo wuxuu markiiba ku leeyahay your API key is missing uu maqan yahay marka laasima heli karaysa dhaatada ilaa iyo API key aad samaysato saas la mid ah haddii aan postman-kuna waa la mid waa advanced marka la tijaabinayo API keys-ka sida uu shaqeynaya waxaas dhan baa loo isticmaalaa marka insha Allah isagana I think 10 gooniin ka samayn doonaa postman-ka waa software aad u ballaaran laakiin tusaale soo qaadano matalan waxaan idhi news API.org version 2 everything dadna waa search gareeyay way status code-ka waxa jira wax loo yaqaan haddii 401 aad hesho marka status code-ku haddii aad timaado Google-ka matalan Google-ka haddii nimaado inaan matalan API key matalan waxaan leeyahay HTTP waxaan leeyahay marka status code noocyada kala duwan marka uu sameysmayo waad eegi kartaa tusaale ahaan dadkan oo kale click aad siiso information marka qaybo kala duwan buu ku soo dhigay matalan haddii cilada ku soo baxdaa 100 ilaa 199 oo ku noqdo waa information responsive baa loo yaqaana haddii laakiin uu ku soo dhigo 200 ilaa 299 waa successful waa marka aad ku xiranto API-gaaga uu ku shaqeeyo kuwan kale waxa weeye redirect message 300 to 399 waxa dhan marka gooni mar sharax doona waa client error haddii uu ciladi jirto 400 490 marka imika inaga maxayna haystaa client error bayna haysta marka 400 wixii ka bilaabmo oo dhan waa already waa ciladu 400 401 402 waxaas dhan baa iman karaya laakiin 400 baad aragto waxa cilad waxa ku haysata waxa weeyaan xagga clients-ka ah laakiin bal haddii aan ga'dan oo kale aan ka tago deedna waxa yidhi waxa weeyaan sen 404 buu noqday marka waxa weeyaan optionadu way kala duwan yihiin marka API case marka la xiriirso waxa weeyaan waa inaad saxdaa endpoints-kaaga ugu dambeeyo matalan haddii key symbol-ka JSON placeholder-kan soo qaato marka hore aan soo qaatay matalan website-ka waxaan tagayaa JSON waxaan kan kaagama baahna wax API key kaagama baahna matalan postiyada kale aan u baahanahay link-ka ma soo copy-yeystay haddaan imaado marka aan ku dul bedelo idhaahdo okay link-ka igama sax control v qasama inaad postman aad wada haysato browser-kaaga caadiga aad ku tijaabin doontaa haddaan imika sen aan idhaahdo muxuu soo dhigay status code-kii waa maxay waa 200 haddaad heshaba means waxa weeyaan
API keygaasi si fiican baad ula xidhiidha ama HTTPS kaasi waxa weeyaan waad access gareysay laakiin haddii aanad waxa weeyaan aanad helin ciladaha kala duwan messageadan bay ku kala xiran tahay matalan 400 iyo haddaad error hesho kaas waa error saas la mid ah marka insha Allah casharo gooni inuu ka samayn doonaa API keyska iyo waxa loo yaqaan HTTP response aynu kusoo noqon marka newskeena kan waa tijaabin soo qaadan JSON placeholders kan maanta newska baynu isticmaali doonaa waxaana newska marka waxa laasima inaad haysato API key way marka maxaa kale laasima bas requirement kaas kaliya requirement ya optionada kale waad baari kartaa tusaale searching inagu se halkan ma kugu diyaariyay waxa id ko query-yadan u baahanahay halkan ma inoo soo dhigay waxa id ko waxaan u baahanay query wax allaale iyo wixii abals ku saabsan marka meesha query-gan aad ka soo akhrisanaysaa waxa weeyaan waa documentation oo marka dad everything ka timaado waxyaabaha necessary-ga ko wuxuu ku leeyahay queue waxay u taagan tahay waxa weeyaan waa query marka query-ga haddaad eegto waxyaabaha gelin karaysa waxa ka mid ah tusaale ahaan waxaad gelin karaysaa matalan topicyada oo kale matalan bitcoin oo kale aad gelin karaysaa marka optionada waxa weeyaan query halkan baad kaga doontaa search in haddii matalan aad u baahan tahay waxa weeyaan waxyaabaad ku baarayso marka inta badan newska documentationkiisa si fiican baad akhri doontaa laakiin inaga maxaan tusaale soo qaadanay https new api.org version 2 ilaa halkaas waxa weeyaan waa maxay waa endpoints kaynu baahannahay maxaa kasii dambeynaya waxa idhi ko query waxaad ii baadhaa wax allaali wixii ku saabsan abal waay goormu markaa bilaabmaya from laga bilaabo 3 date baan geliyey sort by published goortii la soo geliyey wax weeyaan ku sort garee API keygii baan geliyey page kan u baahanay imsaan u baahanay ilaa 30 inuu soo dhigo marka 30 kan muxuu taagan tahay mid ka mid ah haddii xogtan waad ka maarmi kartaa laakiin kuugu muhiimsan waxa waa API keygan oo kale aad geliso nimka waxaan 30 item oo inuu soo dhiga marka datadii oo dhan buu halkan soo dhigaya haddii mid la 30 kan soo yareeyo dhaxdo waxaad soo dhigtaa aan ka dhigo wax weeyaan laba bahalo kaliya tadeedna waxaan dhisan kana soo weyneeyo laba item oo kaliya ama laba news oo kaliya soo dhigay marka articles halkan buu ka sii bilaabmaya marka kun wax weeyaan waa JSON format baa loo yaqaanaa halkan waa ku soo dhigay option kala duwan waxa jira oo waxa loo yaqaan waxa weeyaan API keys isku soo bandhigo JSON baa kamid ah SAML baa kamid ah HTML buu soo dhigi karaa text buu soo dhigi karaa marka waxaan dhan si faahfaahsan insha Allah waqtigeeda aynu uga warrami doonaa haddii aad xiisaynayso markasta ardaydu waxay xiisaynaysaa ku xirantay comment-ka nagula wadaag laakiin hadda format-ku inoo soo dhigay waa maxay waa JSON format marka qaabkan buu dhigan yahay ko waa value-gii deedna waa key-gii deedna shaygii value ku raacaya matalan kan waxa weeyaan waa key-gii kana wax loo yaqaan marka value way hadda waxaan markaa imisa item buu soo dhigay marka articles marka laga soo bilaabo halkan waxa ku soo jira kan waa ko kan wax weeyaan waa laba marka halkaas labada item buu ku soo dhigay way kan isku soo laba jir noqon halkaas source id name deedna author key qoraalkaasi qoray haddii kii sare laftiisa aan furo idhaahdo kana ii fur isagana waa la mid eg waa source id name marka halkaas source id name marka numberkaad u baahantahay oo dhan ayaad waxa weeyaan aad halkan waxa weeyaan aad ka soo access gareyn karaysaa inagu hadda tusaale ahaan imika 10 baan odhanayaa deedna waxaa leeyahay markaas send marka already uu ku samaysan marka kan waa maxay waa linkiga ama endpoint-ka ugu dambeeya inuu baahannahay marka waxaa leeyahay kan dhammaantiisa wada koobiye haddii aad copy ku samayso haddaad isticmaalayso waxa weeyaan browseradaada oo dhan waad ku imika best gareyn kartaa haddaad tirahdo best in go wuxuu kuu soo dhigay markay waxa weeyaan waa same ama Postman isticmaal oo Postman waa maxay waa software-kan halkan yaala ama browser-kaaga laftiisa uu ku soo bandhigaya laakiin waxa laga yaabaa browserada qaar qaabkan aniga igu soo dhigaya JSON format-kan oo akhriyo karayo inaanu adiga kugu soo bandhigin waayo anigu waxaan isticmaalaya extension file tusaale ahaan adiga haddaynu soo qaadno Firefox-ka waxa laga yaabaa sidoo kale kugu soo baxo best in go marka tirahdo linkigii marka Firefox isaga waliba format kale uu sameynaya browserada qaar baan marka wax format aan ku siinayn marka anigu waxaan isticmaalayaa Chrome khaasatan waxaan isticmaalayaa software yar oo loo yaqaan marka extension file kood la soo degi karaysa waxa loo yaqaan marka waa JSON Viewer Pro baa loo yaqaanaa marka kaas ayaan anigu isticmaalayaa sababta darteed marka waxa weeyaan uu qaabkan formatkan ay ku soo bandhigaya way anyway waan haysanaa endpoint-kan ugu dambeeyay waxa weeyaan JSON format-ka uu soo akhrisanayo website-ka waan haysanaa hadda marka waxaan bilaabi doonaa insha Allah inaynu dhisno application-keena ugu horreyn marka waxaan ka bilaabi doonaa intaynaan API-ga waxa weeyaan aynaan soo qaadanin inaynu horta bal get started-kan ugu horeeya page-ka marka aynu dhisno marka kan waan dhisi doonaa kana waan dhisi doonaa marka
inta badan user interface-kan iska yar horeysiin doonaa marka kanaynu ka bilowno waxaan imanayaa markaa sida caadada ahayd aad halkan timaado click siiso command plate-ka timaado project cusub aan sameynaya loo yaqaan new project application marka waxaan leeyahay select gare folderkaasi waxaan leeyahay markaa news_api dadna waxaan leeyahay markaa create gare way template markaa wuu generate gareeyay haddii aad timaado markaa halkan click dadna waxaa leedahay run without debuggings markaa kan waa template-kii inta badan waxa weeyaan waa barta uu ka bilaabmo Flutter-ku waxaanu isticmaali doonaa hadhow tole plugins ama package aad u fara badan laakiin page-kan ugu horeeya waa iska simple waxaan u baahnaa markaa waxa weeyaan inaan design kan sameeyo haddaad timaado waxa weeyaan desktop-ka waxa halka ku yaala waxa weeyaan laba sawir oo tusaale hadhow tole soo qaadan doono markaa kamid ah laba image oo assets-kan ku dari doono marka labadooda soo copy-yeynaya waxa leeyahay control ama copy dadna waxaad imanaysaa markaa VS Code-kaagii meel bannaan ku dhufo folder-kii markaa assets-kan u samaysanaynaa waxaa leeyahay right click dadna waxaa leeyahay new folder assets folder-ka markaa dad right click siiso waxaa leedahay markaa refill ama adigu explore baad odhan doontaa Windows haddaad isticmaalayso folder-ka markaa kuu soo baxay waxa weeyaan project-kaaga markaa folder-ka assets-ka sii gudagal control v d labadii sawir soo kugu soo bandhigo haddaba aynu ku noqono markaa qaybta loo yaqaanin Bobaspect.yaml-kii sida sawirada loogu soo diri jiray waxaa leeyahay markaa halka ugu hoose haddaad timaado kuwan waa sample-kii markaa waxaan leeyahay uncomment dadna waxaa leedahay ilaa halkan iga saar folder-ka magaciisa waxaa loo yaqaanaa assets dadna waxaa leeyahay slash waxaa leeyahay control save si markaa dhammaan sawiradan waxa weeyaan inuu soo galan labadii sawir markaa saasan kusoo import gareeyay kana waa iska xidhi karayaa main-kayga aan ku noqdo marka waxaanoo kooda waxa weeyaan waa iska soo masaxayaa markaa template-kayga aan qorayaa waa yahay kan weli baan iska masaxo already markaa comment-kii dhammaan waan clean gareeyay waan wada masaxay markaa code-kan baan dib ugu dhex paste gareeyay haddii aad tiraahdo markaa restart weli mar labaad ku celiyo muxuu ka kooban yahay simple kan waa void main-ka oo martu ka bilaamayay run up markaan idhi waxaan hoos geliyay anigu material app-kii waan hoos geliyay material app-ka waxaan iska qariyay waxa weeyaan calaamadda debugging-kii baan iska qariyay title-ka Flutter project template baan u bixiyay markaa kan waan iska soo maxay waxaan leeyahay news api waa theme-ka markaa wax customize kuma samaynin home-kana waxaan ku waxa weeyaan stateless-kan ha soo akhristo markaa simple code-kan waxa weeyaan waa basic hore aan aragtaan rajaynaya hadda deedna restart samayso interface markaa waxa weeye uu isbedelay haddaba waxaan samaysanayaa folder right click baan leeyahay waxaan leeyahay folder-ka hore waxaan leeyahay views ama view deedna markaa waxaan leeyahay right click file-ka ugu hore waxaan bixinay markaa onboard.dart onboard-ku markaa wuxuu noqonayaa stateless onboard page markaa page-kii waxaan samaysanayaa waxa igu xigaya kan waxaan leeyahay scaffold baan samaystay markaa kanoo kale waxaan leeyahay iska soo masax waxay imports-ka aanad isticmaalin haddii imika restart aan diro waxbay isma bedelayaan waayo page-kan kuma soo linki karaynin saan ugu soo linki karayo page-kan loo yaqaano home page-ka guud ahaantiisa waxa weeyaan isaga markaa waxaan leeyahay qaybta loo yaqaano scaffold-ka waxaa sii hoos gelayaan leeyahay markaa body marka haddaad unto kan waa iska soo masaxaysaa waxaan toos ugu xidhaya markaa waxa loo yaqaano aan idhaahdo onboard page-kii igu xidh marka haddaad deedna restart u dirto waxa weeyaan abbaarka dusha sare u ka baxaya maadaama waxa weeyaan wax abbaara aynaan samaynin scaffold qalalan kaliya aynu samaynay markaa simple kan waa main app-ka ka soo kaciyay home page-kan waxaan ku yidhi onboard-ka oo noqonaya stateless-ka view-gii ugu horreeyay inuu soo akhristo view ugu horreysan doona waa maxay waxaanu ka doonaa waxa weeyaan inuu qaabkan uu soo egaado oo sawirkan iyo qoraalkan iyo xogtan dhan waxa weeyaan uu ku soo bilaamo deedna get started marka la yidhaahdo in markaa page-kan kale uu soo gudbo markaa sawirka horreer weyn soo gelinay aan imaado markaa scaffold-ka waxaa leeyahay markaa body markaa timaado waxaa leeyahay markaa container waxaan gelinayaa waxaa leeyahay containerka markaa waxaan sii hoos gelinayaa waxaan markaa imanayaa decoration-ka deedna waxaa leeyahay decoration bogus decoration deedna waxa ugu horeeya waxaan doonayaa image deedna decoration image baan gelinayaa markaa decoration image wuxuu kaa doonayaa image-ka inaad soo geliso waayo waxaan doonayaa containerkan guud maadaama intan oo dhan uu haysto inuu sawirku uu fit garaysnaado marka waxaan leeyahay image-ka marka waxaan leeyahay asset image halkan waxaad ka soo akhrisatay asset image-kayga deedna assetkii folderkii marka igu jira waxa loo yaqaanaa strings kan sameynaya assets/reporter.jpg marka haddaad saxsan tahay sawirka markaad u istaagto wuu kuu soo dhigaya halka yar buu kuu soo dhigaya haddii markaad restart u dirto
sawirka waxaad arkaysaa markaa full screen maaha qayb ka mid u qabsaday si uu markaa full screen u qabsado kana inaga soo minimize gareeyo waxaan imanaya halkan ugu dambaysa deedna waxaa leeyahay markaa comma fit deedna waxaa leeyahay markaa box fit markaa box fit waa maxay waa qaabku sawirku isku soo dhigayo waxaa leeyahay cover hadaad restart u dirto waxaad arkaysaa markaa sawirka already meesha waa wada haystaa spacekiina wax weeyaan uu soo qabsaday kaas markaa waa maxay waa containerkeeni ugu horreeyay way container ku xiga markaa waxaan u baahanay waxa weeyaan halkan hoose shadow baa soo maray waxaad arkaysaa markaa midab yaroo gradient shadow ama madow baynu kaga furnay soo markaa madowgaasi ugu furno waxaan tegayaa markaa qaybta loo yaqaano containerka waxaa sii hoosgelaya waxa leeyahay child container kala sii hoosgelaya containerka kale muxuu ka koobnaanaya waxa leeyahay decoration box decoration markaa waxaan leeyahay gradient hadda colorkii laba color isku jiraan sameynaya waxaan markaa leeyahay linear gradient waxaa sii hoosgelaya colors markaa colors waa maxay qaab listi uu soo baxaya labadii color ugu horreeyay markaan sameynay markaa labada waxaan ka dhigayaa mid waa colors dot hadda tusaale ahaan waxa leeyahay green haddaad ka dhigto kalabaadna waxa leeyahay markaa colors dot matalan red aan kan ka dhigo laba color haddaad saas kulaad uga dhigto deedna aad restart u dirto waxa dhaca u fiirso restart boundary labadii color markaa waxa weeyaan labadii color buu isku daraya haddaba labada color suu markaa inaga waxa weeyaan uu shadowgan hoostan oo kale ugu madooba tusha saaran uu caadi uga noqdo waxaa jira horta inaad xadido qaabka uu colorkaagu u samaysmayo markaa si aad u xadido horta markasta halkan waxaan ku sameynaya waxa weeyaan comma si markaa waxa weeyaan layoutku isku hagaajiyo waa linear markaan nimaado waxa leeyahay tusaale ahaan markaa waxa leeyahay beginning halka bilaamayo colorku siduu bilaamaya markaa waxa leeyahay alignment waxa leeyahay markaa alignment ha ka soo bilaabmo مثلا waxa leeyahay center oo center to bottom waxaan jeedaa center top center qaadada click siiso waxa leeyahay imko dhinacyada ka soo bilaabmay waxa arkaysaa green key dhinacan waxa loo yaqaan bidixdu ka bilaabmay kana midigtu ka soo bilaabmay laakiin waan bedelan waxa leeyahay beginning ha ka soo bilaabmo dusha sare oo top centerka ah halkee ha ku dhamaadana waxa leeyahay markaa n ha ku dhamaado alignment waxa leeyahay markaa bottom center markaa waxaad dad restart u dirto restart gareyso waxa weeyaan colorku isbedelay greenka dusha ka soo bilaabmaya hoos dhinaca sanka ka soo bilaabmaya laakiin waxaad ogaataa waxa weeyaan inagu uma baahnin labadan color tusaale baan soo qaadanayay labada waxaan ka dhigayaa markaa black kan labaadna waxa leeyahay markaa isaga waxaad dhigtaa black haddii markaad restart u dirto wixii wada madoobaanaya laakiin black ugu horeeya ee sawirkan opacity-giisan meesha ka saaraya markaa waxa leeyahay dot with opacity-giisa 0 ka dhig markaa hadda wuxuu inagu haystaa constant kan waxa leeyahay masax kana waxa leeyahay dot with opacity-giisa isagana waxaad ka dhigtaa meelaha 0.85 markaa hadda dib aad restart u dirto sawirka waxaad arkaysaa markaa waxa weeyaan hadda si fiican buu wax weeyaan markaa uu muuqanayaa waana waxa weeyaan shadowgu ku yara sameeyay haddii markaad shadowga doonayso inaad ku kala badiso waxaan isticmaalay markaa halka ugu sareysan dib ugu noqdo stops wax loo yaqaano stops markaa waxa weeyaan waa sida colorskan waxa weeyaan ay saameynta u kala yeelanayaan markaa stops markaa tiraahdo waxa leeyahay markaa waa list ahaan ka koobaad 0.2 ha qaato ka labaadna waxa leeyahay markaa 0.7 ha qaato markaa dad save gareyso hoosta yar dark buu noqonaya dushiisana khafiif buu noqonaya way kaas markaa waxa weeyaan waa image-keeni ugu horreeyay waxa markaa aan sameeyay waxa laba container gudo image-ka haya iyo container labaad waxa weeyaan gradient-ka haya fadlan meelaha ku adkaada comment-kiina ugu wadaagsan markaa details aynu soo sharaxno way containerka markaa timaado waxa sii hoosgelaya waxaan leeyahay waxa sii hoosgelaya child halkan kaalay waxaan markaa sii hoosgelaya waxaan leeyahay child sii hoosgelaya waxaan leeyahay waa column column-kan waxa sii hoosgelaya waxa weeyaan waa children marka hadda waxaan sameynayaa column maadaama 1 2 3 item yihiin is hoosgelayaan waxaan isticmaalaya markaa waa qaab column bas ku soo hoosgelaya way haddaba farta halkan inoo taliyada waa customize fartan waxa weeyaan waa far aan ku jirin imika Flutter-ka marka waxaan isticmaali doonaa package-ka loo yaqaan Google Fonts marka hadda halkan timaado waxa leeyahay marka hadda timaado pop.div dad halkan dadna waxaan search galinaa wax loo yaqaan Google Fonts marka fartan u baahan package-kan u baahan waa kan 4500 qof baa waxa weeyaan like gareeyay shirkadda Google baa markaa iskale haddii aad u baahato halkan baad ka sii baari kartaa waxa leeyahay Google ama Fonts haddaad ku qorto fonts.google haddaad ku qorto weliba aan tago qaybta loo yaqaano fontska waa halkan ku yaala farta markaan u baahanay waxa weeyaan I think space baa ku jira waa kana fartan u baahan markaa waa tan
markaa kuna kala duwan space mono isticmaali kartaa laakiin inagu waxaan weeyaan tan isticmaal markaa waxa weeyaan tan oo kale dad ku sii dhufato tan markaa inagu isticmaali doona way fartan daba si aan package-kan u soo geliyo waxaan imanayaa markaa Google Fonts-ki waxaan leeyahay markaa Google Fonts-ki soo qaad qaabka loogu shubay hadda tagto install qaab command oo isticmaali kartaa waxaad qoraysaa markaa flutter pop art the Google Fonts markaa dadkan koobiyeysato oo timaado waxa weeyaan terminal-kaaga deedna account markaa hadda tagto qaybta loo yaqaanay wuxuu soo gelayaa qaybta pop aspect-ka hadda waxaynu haysanaa hal wax ma haysano waxa weeyaan weli package customize sameynaa soo gelin laakiin markaad enter siiso package-ku soo download garanaya deedna waxa weeyaan waa inuu halka kugu soo daraa markaa way already waa kan kugu soo daray markaa already dependency Google Fonts wuxuu sameeyay dependency-gaaga wayaan save gareeyo deedna waxa leeyahay markaa exit kan ka baxo way qoraalkayga hadda ugu horeeyay aan qoro wuxuu noqonaya markaa qoraalka ugu horeeyay waa hadda doonto sidiisba inuu soo koobiyeyno waxa leeyahay markaa waa text qoraalka markaa waa kan laba line buu naga noqday markaan isku soo xiro okay markaa wali baan string ku sameeyo dad qoraal qoris waa string ku jira way hadii ka soo qoraalkii koobaad qoraalka labaad markaa isagana saas la mid ah inuu soo koobiyeysto qoraalka labaadna waa kan control o control c isagana waxa la double ko ama quotation control v kaasna waxa weeyaan waa qoraalkii labaad qoraalka saddexaad markaa isagana waxa leeyahay waa button markaa isagana waxa leeyahay elevated button waxa leeyahay isagana textiga sii hoos gelaya waxaad iga dhigtaa string isagana aan furo get started baan filayno ahaa waxaa la soo koobiye markaa qoraal ahaan control v way markaa saddexdoodii waan sameeyey saddexdii qoraal laakiin styling kuma samay markaa save gareeyo fiirso dushii sare ayuu markaa wada tagay wixii oo dhami dushii sare uu tagay cilada ugu horeysa markaa soo baxday waxa weeyaan haddaad u baahantay shaygan inuu hoostan u yimaado waxaan isticmaalayaa markaa waxa loo yaqaano column-ka ayaan tagayaa markaa horta halkan aan idhaahdo comma deedna waxaan tagayaa markaa qaybta loo yaqaano column waxaan leeyahay markaa main access-ka waxaa leeyahay main access.n dhamaadkan host markaa wixii dhan ku soo dhigay halka dush sare uu ka soo baxay hostii uu ku soo wada dhigay way qoraalka labaad laftiisa waxa ka cirifyada oo dhan ku dhagan yahay markaa talabaad kale waxa weeyaan centerkana qoraal kuma fadhiyo marka tusaalahan waa farta wada madow markaa isaga laftiisa waxaan leeyahay aan idhaahdo cross access.center soo centerka markaa qoraalku ugu wada fadhiisto waayay qoraalku laakiin maadaama cirifyada ku dhagan yahay column-ka gebigiisa waxaa sii hoos gelinayaa padding marka haddaad tiraahdo aad ku dhufato markaad isaga aad u timaado groupkan meelaha aad ka eegan doonta haddii kale control dot baad isticmaali doontaa deedna waxaa leeyahay marka waxaad iigu raab garaysaa padding marka weliba sidaska paddingkan weyneeyo meelahaasi 20 waan ka dhigayaa deedna restart aan diro hareeraha marka waxaad arkaysaa uu kasoo durkayaa 20 weliba maybe inuu ku yar yahay meelahaasaan idhaahdo 40 deedna restart waxaad arkaysaa markaa imika hareeraha uu kasoo durkay aynu styling haddaba u samayno kan waa ciwaankii ugu horeeyey waxaan leeyahay comma style maadaama Google Fonts ma isticmaalo waxaan leeyahay Google Fonts package-kan soo akhristay dot farti loo yaqaan markaa waatan farti baan doortay farta okay markaa constant aan ka saaro sidoo kale markaa style-kii kale aan ku qoro style kale maxaa ka mid ah colors.white waxaan leeyahay font weight bold font size hadii originalkan ku noqono oo aad siiso fartaad click siiso 37 meelahaas ay ahayd markaa in 40 meelahaas inuu gaarsiinayna waxaan leeyahay markaa 40 dadna comma tala control save ama restart aan diro halkaas markaa imika qoraalkii fartii wax weeyaan way waaweynaatay fartii lafteeda waxaan leeyahay markaa text style-ka markaa timaado waxaan leeyahay markaa halkan dambe markaa qaybtii Google halkan ku xidhmaysaa styling-ku hostida markaa imanaysa waxaa leeyahay markaa text align deedna waxaa markaa text align dot center soo markaa centerku u fadhiisto ka markaa saasan ku dhameynay qoraalka labaad markaa isagana aan leenahay style samee qoraalka markaa farta xoo bedeli mayno isaga waxaan isticmaalnaa text style-kii caadiga ahaa colors.white isaga white baan ku dhiganaa way qoraalka laftiisa waxaa leeyahay markaa isagana aan idhaahdo alignment dibadaan uga baxo style-ka waxaa leeyahay text align center isna markaasi wax weeyaan centerka uu soo fadhiisto marka sizekeeda weli waan yaro weyneyno waxaa leeyahay font size meelaha 12 aan ku eego marka hore control save I think waan sii yareeyay ay 16 control save
60 meelaha 18 inu ka dhigno so two lines uu noqdo marka labadii line isagana saas kugu dhamaystirnaaday maxaan intaa inoo soo raaciyaa buttonkan inuu isagana markaa stylekiisa aynu hagaajino hadhowna spacing baynu samayn doonaa marka waxaan leeyahay buttonka kaalay marka buttonka dadun sida stylekiisa hagaajiso waxaad isticmaalaysaa style elevator button dot style from marka background colorkiisa waxaan leeyahay colors dot indigo colorkaasna maanta isticmaalina dot shadekiisana meelaha 800 inu ka dhigno waxaa leeyahay markaa foreground ama okay foreground colors dot white marka hore cadaan isagu waxaa elevation oo shadowga hoose inaan ka masaxo isagana waxaa leeyahay 0 dadna haddaad save garayso sizekiisa hadda uu yaryay markaas aad sizekiisa aduunayso waxaa leeyahay markaa minimum size-ka waxaad iga dhigtaa size xagga width-ka waa inuu double dot infinity macnaheed double dot infinity waxa weeyaan waa full width qaado height-kana meelaha waxaanu ka dhigaynaa 60 haddii markaad save garayso botka xoog markaa waa weynaaday I think weliba inaan aan ka soo yareeyo meelahaas aan imaado 50 ama 60 baan ku dayno botku waxaad muddo laakiin aanu haysan markaa isagu baarinkii guud aanu ku jirin dhib laakiin ma laha waxaa leeyahay markaa dadka design-ka soo egto rounding hortaan ka soo dhigno maadaama space-ka wada haysto kana 55 way rounding hadaba saad uga dhigto buttonka waxaad isticmaalaysaa halka u sareysa hadaan tagno waa shape dadna markaa waxaan leeyahay waxaan markaa isticmaalayaa stadium border dadna haddaad dadna restart aad u samayso shape markaa waxaad ka sax weeyaan wuxuu ku noqonayaa rounded buu ku noqonayaa way hadda waxaan doonayaa markaa inaan space aan u dhaxaysiiyo kuwan space-ka hadda aan u dhaxaysiinayo sida caadada waxaad isticmaali kartaa size box waad isticmaali kartaa laakiin nagu maanta package cusub aynu isticmaali doonaa loo yaqaano markaa gap click hadaad siiso command plate halkan waxaan isticmaalayaa Bob Spec Assistant waa package ama extension uu leeyahay waxaan yiri VS Code kale marka wuxuu ku saamaxayaa hadda halkan timaado tiraahdo extension fileska dadna tiraahdo marka Bob Spec waa kale ku yaala marka assistant kan waa baan ku shubtay marka wuxuu ku saamaxayaa dhammaan package-ka halkan intaad manual aad kolba soo qaadan lahayd imka tusaalahan halkan yimaado gap waa package-kan doonayo inaan ku install garaysto dadka la gariyo 220 dad click siiso marka gapku qaabka waxa weeyaan waa size box-ka kale uu shaqeynaya laakiin wuxuu kaga fiican yahay columns-ki rows-ka markaad sameynayso marka haddaan u baahan inaan ku shubto qaabkii install baa odhanaysaa deedna qaabkii manual ka wada ugu shubi kartaa laakiin inagu package-ka inta badan isticmaali doonaa waxaa laga soo close garee same package-ka markaan u active gareeyo markastaan u baahanahay waxaan imanaya halkan dad click siiso command plate ama shortcut shift control P dad click siiso deedna waxaan doonayaa Bob Spec Assistant deedna markaa package-ka magaciisa ku qoraya gap isaga markaa automatic ugu install gareynaya package-ka halkan deedna wax weeyaan ku soo install gareeyay package-ka hadaba saan u isticmaalo waa simple waxaan imanayaa markaa size-ka oo kale waxaa leeyahay markaa constant deedna waxaa leeyahay gap tan 12 baan u dhaxaysiinayaa haddaad save garayso 12 buu markaa wax weeyaan uu ka durkay saas la mid ah waxaa leeyahay kana waxaa leeyahay constant gap meelaha isagana waxaan leeyahay 12 ka soo durkay halkaas markaa guud ahaan uu ka wada durkay hadda already wax weeyaan keen uu ku soo yara dhow yahay ugu dambeyn markaa waxaan leeyahay waxaan isticmaalayaa markaa haddii bottonka lagu dhufto markaa in waxa weeyaan uu next page ku xigo tago mostly intii ugu badnayd waxa weeyaan waan dhaweynay meelahan oo kale farta size-keedu kala weynaan kartaa si wax weeyaan isku soo leegaaday marka kale waxaan isticmaalay 18 then geeno 20 did not save garayso waxaad ka soo weynaanayaa size-kan sarana waxaan geenayaa meelahaasi 46 isagana waxa weeyaan uu soo weynaanaya way marka page-ka koobaad saas uu inaga dhayahay hadda marka waxaan design gareyn doonaa isagana waxa weeyaan waa page-ki labaad user interface-ki labaad marka design gareyn doonaa marka page-kan saad isagana u soo design garayso waxaan tagaynaa markaa qaybta loo yaqaanay view-ga page waxaan samaysanayaa markaa right click waxaan leeyahay dashboard.dart waayay dashboard wuxuu ka kooban yahay stateless dashboard page halkan waxaa leeyahay markaa scaffold markaa horta intiisana ku dayo register hadda dirto wax isbedelaya ma jiraan intii marba in get started odhan lahaa waxaan automatic u odhanayaa waxa weeye main page-ku ha ka soo kaco maxay dashboard-ka ka soo kaco marka aad u isku xiri doona laakiin hadda waxa weeye dashboard-ka ka soo kaco dashboard-ku maadaama bannaan uu yahay oo inaan isticmaalin waxa weeyaan wax aynaan qorin widgets-a scaffold-ku mooyaane waa page bannaan buu ku soo kacaya waa yahay dashboard-ka hadda waxaa leeyahay markaa dashboard wuxuu ka kooban yahay qaybtan sareysa waa top bar-ki ama up bar-ki
xaggan hoosena waxa weeyaan waa bottom navigation barkii deedna waa card deedna markaa waxa weeyaan qaybtii ugu muhiimsan fetch data inuu soo akhristo way qaybtan markaa ku bilowno qaybta sareysa waxaan tagayaa markaa scaffoldkayga muxuu ka kooban yahay waxaan leeyahay wuxuu loo yaqaanaa upper deedna waxaan leeyahay markaa upperkii title baan u sameynaya waxaan leeyahay text news aan idhaahdo news ama idhaahdo fetch news way constants-kan iska soo saaro deedna haddaad marka restart u dirto qoraalkii blue buu wada noqonayaa bluegaas si aan markaa colorka u bedelo upperka waxaan leeyahay iyo elevation waxa shadow halka ku yaala waxaan leeyahay background waxaan leeyahay markaa colors.white colorka white buu noqonayaa taas save gareyso white background buu noqday laakiin la qoraalka ku dhex qornaa cadaan buu yahay marka qoraalka sidoo hagaajiso waxaan leeyahay isagana foreground colors dot black ha noqdo isaga markaa waxa weeyaan dib uu soo baxayaa harkii hoose ayaa weli ku yaala harka markaa waxa loo yaqaanaa elevation deedna waxa leeyahay markaa 0 markaa meesha ka wada baxaya way sectionka markaa news appkii xagga waynu sameynay waxaan u baahnaa markaa drawer sidekii iyo labadan icon inaan kusoo darno si aan ugu soo darno upperka hoostiisa waxaa jira wax loo yaqaano drawer deedna waxaa leeyahay markaa drawerka markaa adaa buuxbuuxin doonaa dhutolaad aad u baahato horena cashar ugu sameynay drawerku waa maxay qof markuu buttonka click siiyo waa optionada halkan kugu soo baxaya menuga baa loo yaqaanaa drawer marka qaybtaana saasaan ku dhameynay labadii bottom markaa qornay labada bottom hadaba waxaan isticmaali doonaa icons baan isticmaali doonaa marka icons inta badan Google icons kuma jiraan marka package cusub baan isticmaali doonaa waxaad imanaysaa marka qaybta loo yaqaanay pop deedna icons waxa loo yaqaanaa fluent icons marka shirkadda Microsoft baa iska leh fluent Google material Google ka iska leh fluent marka timaado marka dhowr baa ku jira kan doorna marka waxa weeyaan shirkadda Microsoft ka waxa weeyaan ay owner ka tahay dadna click baad siinaysaa inoo soo koobiyay la halkan markaas soo isticmaalayso Bob Spectacle line-kan code kaga yimaado waxaan jeedaa numberska ka dambeeya digits kaga imanaysaa sidii la mid click waxa la markaa package-kaasan ku shubanayaa Bob Spectacle assistant control v kaasi automatic ah ugu soo shumo wax kale isagana muhiima package-kan wuxuu kale leeyahay imka tusaale ahaan Flutter-ka wuxuu ku yimaadaa wax loo yaqaan icons ay shirkadda Google iska leedahay marka dad ku dhufto kan kale icons aad tiraahdo waa halkan ku yaala midna kan kale waa home waa menu waa close marka waxa waa bilaash waad isticmaali kartaa already Flutter ku dhex dhisan yihiin laakiin waxaan doonaynaa icon-ka ka qurux badan kuwan marka fluent sababtaas inuu isticmaalna haddii marka aad eegto fluenticons.co website-ka aad eegto imka tusaale ahaan haddii aynu ku qorno home oo tirada search qaybta search-ka kaalay oo tagal ku yaala dad home ku qorto homekiisu sidan buu soo baxay marka xagga waa rounded halka Google waxa weeyaan sidan ka yahay marka xagga midabka midna kana filan ka dhigo yaani rectangle buu kan weegiyay marka combine badan inaga la qurux badan home ka hadaba inaga home ma doonino midna waxaan ka koodo noqonaya waxa weeyaan alert dadna search gareyso combine u baahan marka hadad baahantay kan waa fill hadii aad eegto marka aad outline u baahantay click baad siinaysaa dadna marka outline buu noqonaya way alert marka waxaan leeyahay hadaba aan sameeyo labada icon midna noqonayo wax weeyaan waa alert midna search uu noqonayo marka waxaan imanayaa saan u sameeyo abarkayga kale gudihiisa waxaan isticmaal loo yaqaan actions dadna icon-ka kooda waxaan leeyahay button icon ma isticmaal waxaan leeyahay icon button dadna waxaan leeyahay marka meel ayaanu tagin wax function kuma aan xulin waxaan leeyahay marka icon qaabka loo sugan waxaan leeyahay fluent icons dot muxuu noqonayay alert marka filter uma baahni regular baan u baahnay haddii aad filter tiraahdo maxay wuxuu kugu sameeyaa wax weeyaan waa keyboardka ahaa haddii aad search aad tiraahdo restart uu ku sameeyay icon-ka labaad laftiisana waxaan leeyahay marka aan enter siiyo waxaan leeyahay isagana icon mar labaad baan ku soo celinaya icon button wax function ayaan ku xulin waxaan leeyahay marka icons aan odhanin fluent icons dot search of filter my regular marka labadii icon-na saasan marka wax weeyaan ugu soo xulay labadoodu wax weeyaan iyaga halkan bay ku yaalaan iyaga la wax button kuma xidhna wax kood kuma xidhna waa symbol meel lagu tala galay way inta maxay soo raacaya hadaan ku noqdo dib wax weeyaan interface-keygii halkan waa fartii aan isticmaalayay adkana waa fartayda labaad marka qaybtii body-gan guda galay halkaas waa maxay waa top bar-kii qaybtii body-gan markaan guda galay marka qaybta body-ga saan guda garo waxaan imanayaa marka upper-ka reed uu iga dhameystiran yahay dadna waxa la marka drawer ka sii hoose waxa la marka body-gan marka wax noqonaya waan leeyahay single child scrollable widget-kaas aan isticmaalay child ka sii hoos galina waxaan leeyahay
columns ha sii hoos galaan. Columnska koowaad markaa muxuu noqonayaa column koowaad wuxuu noqonayaa waa kan 1 kana waa column 2 kana waa column 3 kana waa column 4 marka saas uu soconaya. marka column koowaad aan soo qaato column koowaad maxaa sii hoos galaya waxaan leeyahay waxa sii hoos galaya horta aan idhaahdo children ay columnkaas children buu leeyahay waxa sii hoos galaya marka row. sababta row ku qodan waa maxay maadaama break news iyo show more aan doonayo waa row ahaan bay ku sii noqon. marka koowaad waa maxay waa column ahaan oo kan waa column waa isku column kana waa column laakiin columnka koowaad wuxuu ka kooban yahay laba row. waxaan jeedaa row laba item ka kooban. waxaan leeyahay rowga waxaan leeyahay children waxa sii hoos galaya marka koowaad waxaan leeyahay tagasti deedna waxaan leeyahay marka break news kaas waa qoraalkii koowaad. qoraalka labaadna waxaan leeyahay marka show more. labada qoraal saasaan u sameeyay. haddii markaa aynu markaa isticmaalo comma meel kasta uga baahan tahay waxweeyaan comma si uu markaa uu kugu organize gareeyo koodkaaga deedna restart baan dirayaa. way labadii imka hoos iska geliyay same font noo ka dhigay. markastoo doonaysa inaad kala fogeyso horta imka ugu horreyn paddingkii ma wataan oo cirfiday ku dhagan yihiin. markaa si aan paddingka ugu sameeyo columnka guud ee waxaan dhan maamulaya waxaan ku sameynaya markaa wax weeyaan padding meelaha isagana waxaan ka dhigayaa 12 aan ka dhigo deedna save si markaa uu soo durko I think waliba 14 way labada hadaba saan kala durkiyo qaybta rowga kaalay waxaan isticmaalayaa main access alignment dot main access alignment dot space between marka between maxay labada cilif uu kala gee labada marka wax weeyaan uu kala durkiyay. ka koowaad hadaba kan style baan u sameeynaya fartii hore kale waxa la marka Google waxa la maayo ugu horeyn style Google fonts dot space waxa leeyahay font size meelahaas aan ka dhigo font size kiisa I think 24 deedna wuxuu ka diiday markaa constants kana meesha ka saaro deedna restart u dir. markaad ku celiso markaa halkaas markaa fartii wax weyn way isbedeshay size kiisa xoog ban weynay meelaha 20 aan geeyo. font weight kiisa waxa leeyahay markaa font weight deedna waxa leeyahay markaa bold deedna dib aan restart gareeyo. way markaa koodka already waa okay. marka haddii debugging kaaga adeegto oo ciladan oo kala aragto macnaheedu waxa weeyaan waxa cilad ka yara taagantay maaha cilad markaa weyn maaha laakiin fartii aad soo gelisay ama Google package aad soo gelisay wuxuu u baahan yahay inaad system coordinate istaajiso deedna markaa mainkii dib ugu soo noqo deedna dib uun ayru ran garee markaa already wuu xuray deedna imika dib ayuu markaa u soo ran gareynayaa koodka markaa ciladan yar ku soo dhigay waxa weeyaan meesha uu ka baxaysa. way markaa already meesha ka baxday dashboardkan ku soo noqdo sectionka koowaad waan sameeyay labadaasi maxaan u baahan markaa inaan sameeyo wax weeyaan bannerkan aan sameeyo marka bannerka badan dynamic bas la ka dhig laakiin inaga oo hays bedbedelo laakiin statickiisna ka dhiganaa wax badan kan ka sii bedbedelimeyno. way sectionkaas markaa waa maxay waa rowga koowaad waa kaynoo sameynaya waa maxay waxa la aan ugu calaamadiyo waa breaking news and show more section. way marka kaas halkaas ku xidhmay rowgaasi wuxuu ku xidhmayaa bartaasi section wixii waxaan leeyahay markaa card waxaan leeyahay card news section. marka cardkan waxa weeyaan waa qaybta markaa card inu bixinaynaa qaybta saan u sameeyo waxaan isticmaalayaa container waxa leeyahay markaa containerkaasi widthkiisa ha noqdo double.infinity cidhif oo dhan ha qabsado. way marka waxaan kaloo leeyahay heightkiisa sheegayaa waxa leeyahay heightku 200 ha noqdo decoration kiisana waxa leeyahay markaa box decoration color kiisa waxa leeyahay markaa color marka colorka waxaan ka dhigi doonaa hadhow tule image baan soo gelin doonaa markaa hadda si ku meelka ama image baan iska soo geliyo waxa leeyahay markaa aan idhaahdo image deedna waxaan decoration images deedna waxaa soo gelaya image kale waxa leeyahay asset image waxaan markaa ka soo gelinaya waxa leeyahay assets/open ai.jpg kaas markaa waa maxay waa sawirkii already ii yaalay filekan wax weeyaan halka inoogu jiray OpenAI loo yaqaanay. hadda aan idhaahdo markaa restart halkaas markaa cardkii weli ma fit gareysna qayb ka mid uu ka tagay markaa si aan qaybtaas wax weeyaan ugu soo wada fit gareeyo ugu horeyn aan comment aan dhigo dadna waxa leeyahay markaa image-ka dibadiisa waxa leeyahay markaa fit bogus fit.cover dadna waxa leeyahay markaa save si markaa uu soo wada qabsado. waxaan u baahnay soo kale inaan rounded ugu sameeyo waxa leeyahay markaa qaybta sare decoration xagga sare uga bax waxa leeyahay border radius dadna waxa leeyahay markaa
dot circles baan u baahanahay dot circle maybe meelahaasi aan ka dhigo 16 aan ku eego markaan constants ka hortaan meesha ka saaro dadna restart halka markaa 16 dhifyadii rounded buu kasoo sameeyey way qaybtan laga waxta break newska iyo show more ka buttonkan cardku ku dhow yahay maxaanu sameeynay xagga sare markaa cardka waa halka uu ka bilaabmay dushiisa sare tagaya dadna markaa waxaan leeyahay constant gap meelahaas 12 baan dhaxaysiinaya space markaa wax weeyaan uu ka soo durkaya way hadaba qoraal baan doonaynaa ku dhex qorno laakiin qoraalka lagu dhex qoraya kan si fiican uga ma dhex muuqanayo markaa waxaan leeyahay inaan madow aan dul saara tusaale kan aan doorato linear baan markaan dul saaray haddaan hide gareeyo qoraalka sidan kale ku noqonaya kama soo dhex baxayo marka waa inaan layer kale oo madow dul saaraa sidaan marka layerkaas dul saaro waxaan leeyahay containerkan waxaa child si noqonayo c hoos galiya waan leeyahay child waxaad ka dhigtaa another container kale containerka kalena waxaan leeyahay marka decoration waxaan leeyahay marka box decoration colorkiisa waxaad ka leeyahay colorist dot black baan ka dhigayaa kaas waa colorka uu qaadanayo rounded ko kale waa inuu isku mid u noqdaan waxa weeyaan border radius iyo kale waa inuu yeeshaa isla markaa waxaan leeyahay border haddii aan soo maxaa dhacaya aan register aan save gareeyo rectangle buu noqonayaa kan dambe cardka dambe markaa waxaan leeyahay border radius dadna waxaan markaa border radius circle markaa same meelaha waxaan ka dhigayaa 16 inay wada noqdaan constants kan aan meesha ka saaro haddii markaa restart sameeyo cardku waa same laakiin mushkiladda jirta waa maxay waa full madow noqdo marka opacity-ga khafiif waa inaan ka dhigaa marka waxaan leeyahay black dot width opacity meelahaas marka opacity-ga waxaan ka dhigayaa 0.7 oo kale marka haddaad save gareyso dark buu noqonayaa simka qoraalka lagu dul qoraa wuu ka dul muuqan doonaa way markaa containerkan laftiisa ayaa wuxuu sii yeelanayaa markaa weliba halkan aan comma idhaahdo column buu yeelanayaa sababta column ku yeelanaya waa maxay waxaan doonayaa inaan calaamadan aan qoro ama source ka yimid title-kana aan qoro author-kana aan qoro marka waxaan leeyahay child waxaan leeyahay marka column dadna waxaan leeyahay marka children kooda maxay waa text waxaan u bixinayaa marka tech crunch kaas waa qoraalkii koobaad qoraalka labaad waxaan leeyahay text kan waa title-ka marka title-ka halka ma soo koobiysanaya waxaan leeyahay copy qoraalka laftiisa waa symbol dynamic hadda baahdood ka dhigi karta laakiin uu sample baynu ka dhigaynaa waa yahay kaasna waa qoraalkii labaad qoraalka saddexaadna wuxuu noqonayaa text author dadna markaa magaca authorka aynu qorno wigers way haddii markaan save gareeyo wixii waa wada madow lama arkayo markaa si aan wada hagaajiyo dhammaan waxaan wada leeyahay markaa kan ugu horeeya comma style text style colorkiisa waxaan ka dhigayaa colorist dot yellow baan maanta ka dhigaynaa kan dusha u sareysa dad save gareyso yellowgiisa markaa uu muuqanaya kan waa ciwaankii aan doonayay inuu weynaado isaga waxaan leeyahay style google fonts baa markaa isagaan isticmaalay dot fartaydii hore space font size meelahaasi 24 font weight waxaan leeyahay font weight dadna ball colorkiisana waxaan leeyahay markaa colorist dot white hadda casaan bii wada haystaa casaanka markaasaan uga saaro waxaan leeyahay aan eego ugu horeyn constants-kan aan save garay horta restart on diro waayay marka constants-ka guud ee haysta way marka constant guud ee haysta waa halkan ku yaala aan kan ka qaado cardka children kooda jira dadna restart baan diray colorka marka wax weeyaan white buu noqday qoraalka hoose isaga laftiisana saas la mid waxa leeyahay style text style colorkiisu ma leeyahay colorist.white font size kana aan yara kordhiyo font size-kiisana meelahaasi 18 aan ka dhigo dadna save way hadda waxaad arkaysaa laba ciladood baa jira kow horta dhinacay ka bilaabmayaan oo matalan centerku imika bilaabmay sababta waxa weeye column sida default-ka centerku ka bilaabmaa marka column-kan guud ee kooda jiraan saddexda qoraali aan halkan tago weliba kan aan idhaahdo horta comma way marka column-kan tagay waxaan leeyahay marka cross access-ka waxaa ka bilaabma dot waxaan leeyahay ka bilaabma start yani dhinacana ka soo bilaabmo dadna save wixii markaa start dhinacay ka bilaabmayaan aan idhaahdo sidoo kaleeto main access alignment main access.center isagana markaa qoraalka center ku yimid laakiin cidhifyadii uu ku dhegan yahay marka cidhifyadaas aan uga soo durkiyo waxaan imanayaa padding column-ka dadna waxaa leeyahay markaa waxaad igu soo dartaa waxa loo yaqaano padding marka padding-ka dhinac walba ayaan ka soo durkin aan idhaahdo edge.semantic horizontal-ka chief-ka meelahaasi 20 ka soo durki marka dhinac walba 20 buu ka soo durkaya dhinaca chief-ka
way cardkeeni koowaad markaa isaga waa iska symbol saasaan ku sameynay qoraalkan u sameeyo qoraalkan hoose aan idhaahdo constant gap meelahaasi sigiisaan ka dhigo si uu hoosta uga soo durko way kaas markaa waa cardkeeni koowaad wax badan isaga details sii qorimayno xagga hoose isagana markaa intayna cardka aynaan design garin wax weyn qaybta ugu muhiimsan API-giinu soo akhristo waxaanu isagana dhammaystiri doonaa qaybtan hoose loo yaqaano footriska qaybtan markaa soo qaadano waxaan tagay marka ugu hooseysay scaffold waa halkan buu ka bilaabmay meesha uu ka xirmayana waa maxay halkan marka 10 baan kasoo sameeyay wax weeyaan scaffold qaabka loo sameeyo bottom navigation barkan hoose qaabka loo sameeyo wax liiman jira marka halkan deedna waxa leedahay marka bottom navigation bar ama bottom navigation bar mar labadan ku soo celiyo itemska gelaya ayaan markaa sheegaya hadda itemkii kooda markaa qoraya waxa leeyahay markaa itemkooda maxay bottom navigation bar item icon-keenu sameynaya waxa leeyahay markaa icon deedna waxa leeyahay markaa fluent kii weyn isticmaalnaa .home markaa regular marka kaas waa icon-keeni koowaad icon-kaas markaa waxa leeyahay comma haddii aad tiraahdo waxa leeyahay markaa title baa sii raacaya ama aan idhaahdo label baa sii raacaya deedna waxa leeyahay markaa comma label baa markaa sii raacaya marka labelka waxaan u bixinayaa home kaas waa maxay waa kii koowaad markaan weliba comma intaan idhaahdo 4 jeer baan markaa copy-yeynaya bottom navigation barka copy control v marka afartooda haddaan deedna restart aan u sameeyo waxaad arkaysaa markaa wax isbedelaya ma jiraan way markaa bottom navigation barka xooga saarmay laakiin style ahaan baynu gelinay laakiin inuu shaqeeyo waxba dan badan kama lihin aan badbedelo haddaba kala wado maxay مثلا waxaan leeyahay isagana aan idhaahdo explore saddexaadna waxaan leeyahay isagana aan u bixiyo waxa weeyaan save it ka afraadna waxaan leeyahay markaa profile marka kaas waa qoraaladii iconadoodan aan bedelo icon waxaan leeyahay markaa person regular ahaan ha noqdo qof person wejigiisa kana waxaan leeyahay markaa book markis isagana waxaan leeyahay markaa regular explore no xaleeyay communication marka iconskiisa ayaan wada bedelnay haddaan restart u sameeyo hadda wax badan laga arkay ma jiro way backgroundkii ayaa waxa weeyaan same ah marka waxaan leeyahay kana idhaahdo comma backgroundka marka qaabkiisa aan bedelo waxaan leeyahay marka tape waxaad ka dhigtaa tapekiisa haddaad dul istaagto tape wuxuu qaadanaya wax loo yaqaano bottom navigation bar tape then waxa leeyahay marka dot fixed waaye icon iska double doorto waxaan leeyahay مثلا selected waxaan ka dhigayaa marka aan idhaahdo select item color la doorto colors.white ha noqdo sidoo kale ta unselect items ka aan la doorin laftiisuna item colorkiisuna ha noqdo labadoo isku mid ha noqdaan background colorkan deedna sameeyay waxa leeyahay marka colors.black deedna hadda restart u dirto wixii wax weeyaan wada madow hoosta noqonaysa laakiin kan imika maadaama active uu yahay ka koobaad isaga waxaan ka dhigayaa marka haddii icon kan waxa leeyahay halkan kaalay kooba active icon ku haduu noqdo waxa leeyahay marka iconkii dib u soo kici fluent icon home marka hadda waxaan isticmaalayaa fill dadna restart isticmaalada maxay maadaama kun active imika fill baan ka dhigay yani waxa ka stroke marka hore waxa la kimika fill buu noqonayaa marka already dynamic kama dhigayno oo in isbedbedelo page taga kama dhigayno intaan hoose footer ahaan baan ugu talagalay way bottom navigation bar kuna saas ugu dhameystiran yahay marka isagana waxa ka soo minimize kare maxaa daba inoo soo raacayo bottom navigation barka iconada kala duwanay laakiin intiisa badan one disney waxa inoo soo raacayo ugu dambeyn inaynu dhisno qaybta section kan oo kuwa sare la mid noqonaya iyo inaynu marka cardkan koobaad aynu dhisno marka aynu cardkan u dhisno waxaan imanayaa marka animado marka haddii too much uu ku noqdo qoraalku wax weeyaan waad kala organize garan kartaa laakiin kow inagu waxaan marnaa qaybta ugu sareysa hadaynu kasoo bilowno kan waa maxay waa up bar kii halkaas ku xiran yahay marka up bar kan iska soo yara minimize garanayaa single child key aynu markaa soo sameynay marka column qaybtan soo koobiyeen wax weeyaan aynu baahanay marka wax weeyaan qaybtan loo yaqaan rowga marka waxaan leeyahay maadaama mar labada soo noqon muxuu ka kooban yahay break newski iyo tagastii marka waxa la soo koobiyay in badan waxa qaatay soo cardkan marka waxa laga soo minimize garee
marka koodkiisa dhan wax weeyaan ka soo yareynaya way hadaba halkiisa dambaan imanaya ugu horreyn waxa leeyahay marka gap meelahaasi 12 u dhaxaysii qoraalkan soo koobistay control v waayo waa rowgan wuxuu lamid yahay marka break news kuma bedelaya rowgan wuxuu lamid yahay waa recommended baan ka dhigay halka marka hore break news ka ah recommended marka qoraalkan bay soo koobiye ama dib u qorno waxa leeyahay marka halkan kaalay waxa leeyahay marka recommended for you waayo show more sensisan ku diina dadna restart u samee halka marka qoraalkii rowgaasi kanun buu lamid yahay way waxa markaa sameynaya hadda cardskii kala sameynaya marka cardskan inta aan marka cardskan aan sameynin shaqada ugu muhiimsan markaan soo horqabanna waa inuu API-gi uu soo akhristaa waxa weeyaan aynu waxa weeyaan daatada ka soo akhrisana website-kii halka inoo yaal marka news API-ga baynu isticmaalaynaa Postman-ka marka halkan bi noogu jira sidan uu Postman-ku u soo akhrisanayo ayaynu uga doonayno application-keena maxay oo u soo akhristo marka tusaale ahaan halkan مثلا كانوا kale waxa ka dhigi karnaa Microsoft marka waa query-ga soo akhrisanay shirkadda Microsoft wixii ku saabsan marka imika waxa uu soo dhigo oo dhammaan maxay shirkadda Microsoft ku saabsanaanaysa marka ama Apple kolba kiyaado dad ka dhigi kartaa Tesla ka dhigi kartaa Apple bad ka dhigi kartaa whatever wixii aad doonto way sesskiisana kana meelaha aynu ka dhigno 20 item ka soo akhristo dadna waxa leeyahay way haddaba imika waxaanu baahanahay noocyada fara badan baa loo isticmaalaa marka maanta inagu waxaanu isticmaali doonaa package kala duwan haddii aad timaado halkan tusaale ahaan aad ku qorto Flutter مثلا waxaan leeyahay HTTP request ama fetch data kan marka waa qaabka basic ee soo akhrisan karto dad marka aad click siiso mar labaad kale waxaan isticmaal ka saxlo yaqaan JSON serializable marka waxaan dhan 10 gooniyo ka dhigi doonaa haddii aad xiisaynayso fadlan comment-ka noogu reeb marka qaabka lagu shaqeeyo JSON serialization iskana command-da ku dhufanaya ugu horreyn marka intaan ka sameynin waxaan u baahanahay inaan sameeyo model marka modelku maxay waa qaabka daatada aad u eegan doonto aad soo akhrisan doonto marka waxaan right click folder waxaan leeyahay marka model deedna waxaan sameynaya right click new file news underscore model.dart way class ba marka qoraya waxaan leeyahay marka news model ka daatada qaabka eeganaysan hadda waxa weeyaan generate garanaya daatada marka halkan ka soo akhrisanay qaabka eeganaysan waa maxay hadda timaada news API-gan kaynu baahnayn waxaan u baahnay title-ka inuu soo akhristo outer-ka laftiisa waad raacin kartaa marka outer-ka title-ka description-ka URL to images-ka iyo content-iga intaasoo item baynu uga baahnayn inuu ka soo akhrisano marka si aad uga soo akhrisato waxaan tagayaa markaa qaybteeni class-kan dib aan ugu soo noqdo filasha markaan u baahnayn read waan soo arkay waxaan u baahnay waa maxay string marka qaar uu marnaan karaa marka nullable waan u ogolaanayaa waxaan u baahnay author-ka waxaan kaloo u baahnay string mar labaad waxaan kaloo u baahnay inaan soo akhristo title-ka waxaan leeyahay string waxaan kaloo u baahnaan karaa description-ka inaan isagana soo qoro waxaan leeyahay string waxaan u baahnaanayaa marka isagana waxa loo yaqaan URL to image qaabka marka u qoran yihiin baad u qoraysaa string waxaan leeyahay isagana marka waxa weeye content marka waxa jira website si yar oo fudud markii uu kugu generate gareynaya oo tusaale ahaan haddii aad imika halkan timaado control o aad tiraahdo control c deedna aad ku qorto marka dart ama aad tiraahdo json to dart haddaad ku qorto مثلا website-dan oo kala kamid ah مثلا kanoo kale aad ku dhufato ood click siiso wuxuu ku leeyahay simple code-kaaga halkan geli deedna waxaa la generate dart marka kulan kale waad samayn kartaa laakiin anigu anyway wax weeye ma isticmaalo 10 kale insha Allah way kuwas aad buu fududiin laakiin qaabkan baa inta badan professional way inta wax weeye waa class-ka marka model-ka qaabka daato eegan doonto and generate grade-ka constructor-kii file-kan waxa la yiraahdaa generate constructor card-ka waxaan generate grade constructor file-kii way waxa dhici karta haddii uu marnaado waxaan leeyahay dhammaantood string maran ha noqdo way marka qaar buu nullable u noqon karaa waxaan leeyahay intaasaan raacinaya way haddaba serialization-ku qaabka loo sameeya maxaad u baahan tahay waa ka marka documentation-ka dhan akhriyo doontaa waxyaabaha necessary-gan u baahnay waxa ugu horeeya waxa weeyaan inaynu package-dan soo gelino package ugu horeeya waxa loo yaqaanaa waa JSON annotation waan soo koobiyeysanaya deedna waxa leeyahay markaa sidii Bob Spec-ka maan imanaya control v hadda timaado markaa qaybta loo yaqaano Bob Spec-kii meesha uu ku daray markaa aynu eegaynaa JSON annotation waa halka inoo soo geliyay waxa kale inoogu xigay waa maxay
kaas markaa dependency gu galay laakiin labadan kale build runnerka iyo JSON serializable kuwa dependency ay galaan marka inaga mar wali gelin doona waana wax leeyahay markaa si lamida PubSpect saddexda package ba markaa inuu baahanahay kalena soo koobisto sayna wax leeyahay markaa control C dadna si lamida wax leeyahay markaa PubSpect control V y marka wuxuu labadoo ku daray build runnerka wuxuu ku daray dependency-ga marka ka soo kadkareynaya dependency-ga keenaya control V waxa kale JSON serializable kiina wuxuu ku daray isla meeshii isagana soo kadkare kan hoostiisa siika way section ka hadaba markaanu sameynay waxa leeyahay marka control save waxa kale tan u baahanayna wax loo yaqaano Flutter Riverboard marka Riverboard maxay u state management-igi maadaama state management aynu meelaha qaar u isticmaalno marka isagana state management-kuna ku soo daray marka intaas package baan ku soo darsanay hadaba qaabkee ayuu u shaqeynaa marka documentation-ka adeegi doonta ugu horreyn wuxuu ka doonayaa kow inaad samayso horta aynu soo import gareyno link-gan oo JSON serializable kaynu sameynayna kana iska soo xidho waxa leeyahay close okay kana save gareeyo kana marka waxaan leeyahay siskiisan yara fogeeyo section-ka laftiisa aan iska soo xidhno way news model-ka marka timaado waxa laasima horta ugu horreyn soo import gareyno control V baan leeyahay marka wuxuu ku soo import gareynaya waxa weeyaan JSON serializable key then waxa leeyahay JSON serializable way JSON serializable marka dusha sare u geyso waxa kale oo doonaya inuu generator-kii uu sameeyo waxa leeyahay marka part marka casharadan gooni u sharxi doonaa file-ka halkan yaala news model-kayga model-ka waa same magac uu noqdaa waxa leeyahay marka news_model.g oo loo soo gaabsay waxa generator.dart marka automatic file kale haduu tula generate garan doona wad arki doontaa marka halka waan iska hubisaa magacan uu la mid noqdaa news model-ka file halka ku yaala same magac waa inuu noqdaan way labada file kale u baahanay kan waxa weeyaan waa kii JSON serializable kii sameynayay dadna waxa imanaya halka hoose control V kalabaadna wali baan soo koobiyesto kan inta badan waxa imika ugu baahan laakiin iska soo koobiyesto isagana waxa leeyahay marka control V kana iska soo yara xidhno way saaska marka hadaynu yara turkino cilad baa wali ku jirta cilad waxa weeyaan laba cilad ku jirta ko user-kan meesha ma haysanee class-kan wax loo yaqaan news model weyn ku bedela waxa leeyahay control D dadaraado wixii user oo dhan control D dadna waxa leeyahay control marka saddexdan meelood kaga jira waxa leeyahay marka waxa igu bedeshaa news model marka qaybtaasi waxa weeyaan waan dhameystirnay errorka labaad jira waxa weeyaan hadda file-kii wali ayaa inaga maqan marka file halkay noo soo dhigmay markuu soo dhigo generator-ku inoo sameeyo ayaan marka JSON serializable-ka insha Allah 10 gooni ku sameyn markasta comment-ka wixii aad nagula wadaagto waa waxaan priority-ga siin doona insha Allah marka dad ku khalkhasho dhima laha insha Allah 10 faahfaahsan mid kasta ka sameyn doona way waxaan tagay markaas in ciladan uga saaro hoos dadugto waxaad isticmaalaysaa marka wax la yaqaano code halkan ku yaala oo generator-ka ku sameynaya marka waxaan leeyahay way code-ka marka aan u baahanahay marka waxaan leeyahay la halkay soo copy inta akhtarka waxaan leeyahay copy code-ka marka wax weeyaan waliba xarafka waxaan filayaa f-tan ka tagay waa file-ka generator-balka ku sameynaya command-kani waxaad imanaysaa marka terminal-kaaga deedna waxaa leedahay kan horeyga clear gare control V u fiirsay marka file kale ayuu halkan ku soo dhigay marka enter siiso ciladana markaas ka baxaysa waxaad arkaysaa marka wuxuu inoo generate gareeyay news model data marka inoo generate gareeyay marka file-ka taaban maysid waxaa leeyahay marka aan iska soo xidho kan already marka news-kii model-kii waa inoo generate gareeyay serializable-kii kan marka iska soo xidhaya maxaan hadaba u baahanahay folder kale u baahanay right click dadna waxa leeyahay marka folder-kaas wax loo bixinayo API aynu bixino hadda marka waxaan doonayaa daatada aan ka soo akhristo marka hadda timaado file labaad fetch data from the isticmaasho package kale oo loo yaqaan HTTP baan isticmaalnaa marka si aan soo gelino waxa leeyahay marka aan raahdo PubSpec HTTP dadna marka search gareyso wax weeye kugu soo darayaa file-kiisa marka aan sameeyo right click waxa leeyahay marka news_api.dart dadna waxa leeyahay marka class API waxa leeyahay news surfaces ama news API waad isticmaali kartaa surfaces ama news API surfaces aad doonto qori kartaa waayi marka daatada u baahantay marka waxa weeyaan qaabka uu soo fetch gareynaya ama HTTP-ga loo isticmaalo package marka soo geliso ugu horreyn wuxuu leeyahay package-ka soo import garee asna raaci si marka package waxa weeyaan magaciisa HTTP uu noqdo waa get badan wax get loo yaqaano class badan baa jira
anyway gooni oo sharxi doonaa laakiin linkiga markaad soo koobisato waxaan imanay markaa qaybta loo yaqaano internal iska soo dhaafay already classka manual hadda u samaysan saada u samaysan doona laakiin inagu JS serializable baan isticmaalay marka koodkan dhan ayaan u baahanay marka koodka haddaad soo koobisato waxaan leeyahay markaa halkan baan imanayaa control v marka koodka waxaan ka bedelayaa kow modelkayga waxaan ka dhigayaa qaabka waa list news model marka filekan ku soo xirmaya waa maxay waa news model halkan yaala classka maxaa loo yaqaanay news model baa loo yaqaanay marka waa qaab list oo kala haw soo dhigo fetch marka kan magaca doonto waa function kan la baxaysa midna waxaan leeyahay fetch news magaca doonto leeyahay la bixi kartaa way kan waa maxay waa endpoint ga laga doonaya endpoint ga marka waa maxay waa URL linkigi aad ku soo xirisay data ee uu ka soo akhrisanayay marka si uu linkiga ugu soo xidhno waxaan sameynayaa constant right click then folder baan sameysanayaa loo yaqaan constantis file marka waxaan leeyahay right click new API constantis.dart waayay linki marka inoo soo koobiyay linkiga waa halkan inoo yaala control A then waxaan leeyahay copy marka caadi waxaan ka dhigayaa constant string caadi aan ka dhigayaa endpoint marka magaca doonto la bixi kartaa linki kuma muhiim inaad soo qaadato si markaa constant wax loogu tiro waxyaabahan isbedbedelahaynin waxaan leeyahay markaa save garee hadda waxaan masaxayaa waxaan dhan waxaan leeyahay ilaa halkan iga soo masax waa linkiga already kale inuu halkan ka soo akhristaan u baahanahay maxaan sameeyay marka final responsive await http.get ha soo akhristo maxay fileka loo yaqaan endpoint ha soo akhristo simple waxaan waa maxay waa comment isagana waan iska masaxayaa folderkan leftiisa waan iska soo masaxayaa kan leftiisa waan iska soo masaxayaa marka maxaan sameeyay hore wuxuu naqanay haddii state score-ka haddii uu 200 noqdo macnaheedu waxa weeyaan request-ga aad samaysay ama codsiga aad samaysay uu shaqeeyay oo shaygaasi ama API-gaasi uu shaqeynaya laakiin hadduu 400 500 100 noqdo cilad baa jirta marka iminka waxaan nidhaa haddii uu responsive maxay haddii responsive shaygan markuu soo akhrista datadani oo waxa weeyaan yani responsive uu la mid noqdo 200 macnaheedu waxa weeyaan website-kan wax ka soo akhrisanay data haddii uu 200 uu la mid noqdo markaa kadib waxa weeyaan aan hore uga sii soconaya waxaa haddii uu state code-ku 200 noqdo markaa uu shaqeeyay macnaheedu weeyaan waxa la list datada ku jirta waxaan isticmaalaa wax la yaqaan JSON decoding iyagu samee responsive.body-ga iyagu samee then waxaan sii gelinayaa markaa qaybta loo yaqaan articles ha soo akhristo website-ka ka soo akhristo then waxaan leeyahay markaa waxaad soo return garaysaa data adigoo qaab maab ahaana u soo dhigaya then waxaan news model from JSON then geli waxaa leeyahay dot to list afwan aan to list way inta markaa sameeyo anyway waan dhownahay haddii markaad restart u dirto waxa weeyaan wax badan iminka isbedelaya ma jiraan waxaan markaa isticmaalaya wax loo yaqaan hadaba riverboard-kaygii waxaan isticmaalaya state management-igi markaa aan idhaahdo waxa weeyaan dependency-ga aan kusoo xidho waxaan leeyahay final intaan waxaan leeyahay provider dadna inta haddaad siiso automatic kugu dhamaystiraya waxaan leeyahay news API surface provider marka magaca doonto la baxaysaa provider-ku wuxuu u baahan yahay isaguna waxa weeyaan riverboard-ka inaad soo geliso nooca waxa weeyaan tapes waxa weeyaan news API surface waxaan leeyahay soo return gareeya saas lamida news API surface way markaan restart u diro hadda waxa weeyaan uu dhow yahay folder kale samaysana loo yaqaan controller waxaan leeyahay markaa controller ama idhaahdo provider dadna waxaan isagana soo gelinaya wax loo yaqaan right click aan idhaahdo markaa news underscore provider dot dart isagana markaa waxaan leeyahay future provider baan u baahanahay oo state riverboard-kiya waxaan leeyahay markaa waxaan leeyahay markaa news provider waayahay kan wuxuu leeyahay markaa click hadaad siiso soo import garay library-giisa waa tapekiisa waa maxay waxaan leeyahay waa list news model-ka soo akhristo way kan markaa waxaan leeyahay ref dot ha soo akhristo waxa weeyaan isagana wax loo yaqaan news API surface provider-ka ha soo akhristo dot fetch news markaa waxa weeyaan isagana ha soo akhristaan waxa weeyaan fetch news-ka ha soo akhristo haddii markaad restart u dirto
hadda wax weyn wax isbedelaya ma jiraan laakiin mostly APIs kii configuration ka soo dhameeyeen ugu dambeyn waxaan hadda ugu talag aan u baahan wax ku noqon marka kan iska soo xidh news API kan iska soo xidh dashboard kan hadda ku noqonaya dashboard ka waxay noo taagnayd recommended kan soo dhameystirnay section kii loo yaqaan recommended waxaa leeyahay marka row space grid waa kan section kan marka waxaan u bixinaynaa isagana waxaa leeyahay recommended for you way hadaba rowgan waxaan leeyahay horta classka guud waxaan u bedelayaa waxa loo yaqaano stateless weeyaan referboard maadaama aan ka dhinac weeye consumer baan u bedelayaa marka waxaa leeyahay soo import kare package kan dadna waxaa leeyahay halkan widget ref ka la soo akhrisanayaa markaad sameynayso waxa weeyaan referboard-ka inta aan markaa restart hadda u dirto cilad ba dhacaysa sababta waxa weeyaan provider scope-kii uu ka doonayaa okay inta aan markaana sameynin waxaan leeyahay oo fiirso halka ma nimanaya waxaan leeyahay markaa news waxaan leeyahay horta ugu horreyn final variable baan sameynaya loo yaqaano news API SQL ama waxaan leeyahay martalan get news dadna waxaan leeyahay markaa ref.watch halka ka soo akhrisanaya waxaan leeyahay markaa news provider kii soo akhristo imika hadda dadna restart u dirto waxa weeyaan markaa crash grow application sababta waxa weeyaan provider ka wuxuu ku leeyahay markaa halkan sare main waa inaan ku soo wrap gareynaa waxaa leeyahay markaa wrap waxaa leeyahay markaa provider scope dadna hadda tahay restart hadda cilad wax weeyaan way ka baxaysaa way qaybta ugu muhiimsan markaan galeynaa waxaan leeyahay recommended markaa waxaan leeyahay hoostiisa inta markaa row waan iska soo baxaya halka ma nimanaya waxaan leeyahay markaa aan idhaahdo fetch data section okay qaybtan waa maxay hadda waxaan eegayaa horta bal data miyaa la hayaa oo API ga miyuu shaqeynaya mise ma shaqeynaya marka si aan u tijaabiyo waxaa leeyahay get news waa maxay waa allahumma salli ala variable halkan yaala get news marka referable weeyaan .when hadda wuxuu tijaabin markaa saddex option buu ku siinayaa kow get newska marka uu soo akhristo miyuu data helay haddii uu data helay wixii inoo soo dhigayo markaa halkan ku qoraynaa haddii ciladi jirto iyo haddii matala mashquul jiro uu iska wareegayo saddexda option buu ku kala siinayaa markaa saddexdooda waxaan leeyahay aynu buuxino saddexdaba kan waxaa leeyahay markaa waxaan ka dhigayaa markaa haddii datadu haddii la mitir dato waxaa leeyahay markaa center waxaad soo qaataa child text matala waxaa leeyahay markaa I have a data waxaan haystaa dato haddii laakiin ciladi jirto waxaa leeyahay isagana markaa centerka waxaad igu soo daabacdaa matala child text waxaan leeyahay error haddii kale oo iska wareegaya matala khadku ama maqan yahay ama cilad kale jirto waxaan leeyahay centerka child circular progress indicator-ka oo ah widgetkii wareegayay ha sameeyo marka hadda deedna tira restart saddexda xaalad mid uu noqon halkaas I have data tumarkoodu wareegay uu tijaabiyay deedna wuxuu kale data haya way maxaa dhacaya haddii bal waxaan ku noqonayaa API ga halka soo akhrisanayay API matalan constant waxbaan ka bedelay marka tusaale ahaan org daasaan ka masaxay deedna dib aan restart gareeyay wuxuu ku leeyahay error cilad baa jirta sababta waxa weeyaan API gi uu garan waayay sax ma wax weyn ka goynay laakiin haddii ciladu jirto aan ciladi jirin 200 uu helo success uu noqdo wuxuu ku soo dhigay marka I have a data way marka hadaba qoraalka mid doonay I have a data inuu soo dhigo waxaan ugu talagalay marka wax weeyaan inaynu design kan noocan aynu sameeyno marka design kan qoraalkan marka wax weeyaan inuu wax weeyaan uu soo akhristo oo qoraalka laftiisa ku dhex qoro way marka waxaan ka bilaabayaa aan idhaahdo hoos u soo tag halkan uu leeyahay wax weeyaan data waan haystaa data mid doonay inuu idhaahdo waan haystaa waxaan u baahanahay waxa loo yaqaan horta ugu horreyn column-ku centerku ka bilaamayaa column-kan guud waxaan dhimay ku jiraan aan idhaahdo cross axis alignment cross axis alignment dot start ka soo bilaamo restart dadaan u diro okay waliba kan maaha I think aan idhaahdo kii guud meeyay kan waa okay anyway columns kan hooseen adoo toleen wax weeyaan bedeli doona laakiin aan hoos u dego way okay ma aha ka sare column-ka laakiin kan baa center ka dhigay sababtaas markaa center-ku istaagaya way horta ugu horreyn gap sameeyo waxaa leeyahay markaa dusha sare waxaan kasoo sameynaya markaa gap meelahaasi 14 aan kasoo dhigo dadna save dusha sare uu kasoo durkay
way markaa center imika uma baahni waxaan leeyahay markaa area oo dhan waa soo masaxayaa waxaan leeyahay qaab list view builder baan u baahnay so automatic maadaama list uu yahay uu isku soo dhigo dadna waxaan leeyahay markaa containerka markaa waxaan leeyahay waxaa sii hoos gelaya childrenkiisa waxaa sii hoos gelaya row kooda waxaa sii hoos gelaya markaa childrenka kooda markaa waxaan leeyahay expanded waa inuu meesha dhan qabsadaa waxaan leeyahay markaa image network waa inuu soo akhristaa haddaba halku sawir ka soo akhrisanaya wuxuu ka soo akhrisanayaa datada oo halkan ku yaala waxaan leeyahay data isagoo indexka gudihiisa ku sii jira dot marka waxaan leeyahay waxaad soo qaadataa url to images haddaad dul istaagto wuxuu ku leeyahay the argument type string wuu marnaan karaa waa nullable cannot be assigned kuma assign gari kartid the parameter type strings marka wuxuu ku leeyahay simple question mark baad dadna daba geynaysa dad calaamada daba dhigto waxaan leeyahay ha u ogolaanin inuu nullable u noqdo haddii markaa restart u diro fiirso weliba intaan cilad kale dhicin horta itemskan waxaan leeyahay item builderkan tago list view builderka markaa halkan timaado waxaan leeyahay markaa item count halka soo akhrisana get news dot length my get news waxaan leeyahay data dot length marka dadna taado restart wareegaya sawirka wax weeyaan wax display no muso markaa debugging hadaan tagno null checkable values wuxuu ku leeyahay nullable baa ku dhacay okay haddii nullable ku dhaco markaa waxa weeyaan maynaanu sheegin vertical view okay expand ka labaadna hortaan sameeyo waxaan leeyahay isagana expanded waayay isagana waxaa leeyahay markaa textiga ka soo akhristo midna isaga laftiisa kan wuxuu noqonayaa markaa column children baa sii hoos gelaya deedna waxaa leeyahay markaa texti kooda maxaa waa datada soo akhristo index dot title waayay isaga laftiisa yaanu marnaanin dhowr qodob markaan hagaajinay item builder maadaama inuu isticmaalno list view builder ugu horreyn waxaan leeyahay shrink waxaan ka dhigayaa through waxaa kale oo leeyahay physics-kiisa waxaan leeyahay never scrollable labadaas markaa waxa weeyaan waa muhiim way markaa restart u diro waxaad markaa waxa weeyaan uu wareegay dadna dhaatada waxa weeyaan markaa uu soo akhristay laakiin sawirka ugu horeeya already waxaanu lahayn image baanu lahayn markaa waan arki doonaa qaabka loo xalinayo kuwaan imageska aan lahayn laakiin already sawiradii iyo detailskii wixii waxa weeyaan API waxa weeyaan soo akhristay haddii aynu ka bedelno imika waa Microsoft kani waxaanu bedelaynaa markaa waxaanu bedeli karaynay nooca query-gan u baahanay marka tusaalaan abal haddaad timaado oo kale way bedeli kartaa marka halkan aynu ka bedeli doonaa haddaad timaado halkan Microsoft ilaa halkaas aynu gelinay marka waxaa leeyahay query-ga waxaad iga dhigtaa abal wixii sawirada waxa jira wixii ka warramaya abal oo dhan Microsoft ka saar baan leeyahay abal ka dhig waayay waxaad arkaa markaa already imika abal buu ka dhigay sidoo kale waxaynu ka dhigi karaynaa inaynu language-ka oo kale wax weeyaan aynu luqadda oo kale laftiisa wax weeyaan aynaynu hagaajino kan wax weeyaan name marka abal tusaale ahaan ay idhaahdo matalan waxaan leeyahay tech crunch way marka query waxaan ka dhigi doonaa tech crunch baynu ka dhigi doonaa si marka wax weeyaan website-kaas uu ka soo akhriso Chinese-ka website-dada aw meesha laga saaro markaan soo copy-yesto marka query-ga already documentation-ka akhri doontaa waxyaabaha query-da kala duwan baari karta halkaas aad ka ogaanaysaa marka waxaan leeyahay intan abal uma baahni control v deedna hadda dib aanu soo restart garayno way marka kuwan oo kale invalid uu kuu soo qoray wax weeyaan sababta wax weeyaan haddii sida caadiga aynu eegno sawirada qaar baa waxa weeyaan URL image-kiisu uu yahay maxay null buu yahay marka sawirka haddii uu URL-kiisu already uu null uu yahay waxa weeyaan sawirkaasi already marka ciladan baa dhacaysa cilada markaas aynu uga hortagno haddii matalan article-kaasi haddii uu bilaa sawir uu yahay maxaynu samayn karnaa waxaynu samayn karnaa simple mumkin waxa weeyaan waxaanu tegi karaynaa qaybtan ku noqonaya waxa weeyaan news model-kii waxaan leeyahay news model-ka haddii sawirku in case ay noqoto nullable hadduu marnaado way marka waxaan raadinaa waxa weeyaan sawir kale oo default oo aynu qaadano markasta inoo jooga marka sawirkan kale waxa weeyaan waa technology kan oo kale marka ku dhufanaynaa marka deedna tiraado link-ka sare inoo copy waxa leeyahay copy marka wafii marka idhaahdo dib aan marka waxa weeyaan restart gareeyo marka isagana waxa weeyaan command-kiina aan dib u ran gareeyo waxa leeyahay marka dib u ran garee
way طبعا dib markaa restart u sameyn application saan u hubin markaa waxa weeyaan image waxa weeyaan oo reer waxta meel kasta oo sawirkii aan sawir lahayn wax markaa si default u qaadanaya sawirkan ayuu markaa toos u qaadanaya waxta kasta dhammaan markaa sawirada uu ku wada bedelaya maybe markaa meelaha qaar inuu waxa weeyaan intooda badan waxa weeyaan wax hagaajiyay meeshaan sawir lahayn kan buu toos u qaadanaya way haddaba in layout keera hagaajino qaabkan kale waxa weeyaan waynu ka dhigi karnaa laakiin in yar baan ka duwi doonaa waxaad arkaysaa markaa ugu horeyn sawirka size-kiisa intuu ku fadhiyo kale aynu soo yarayno waxaan leeyahay markaa labaduba waxay ku fadhiyaan rowga hoos haddanu soo dego waxaan leeyahay markaa kan waa image-ka markaa size-kiisa waxaan leeyahay falagaskiisa 1 ha qaato column-kan kale waxaan leeyahay falagaskiisa 2 ha qaato markaa qoraalkan imika waa 50-50 way isleegin laakiin kan imika ha weynaado xagga qoraalka ha weynaadaan yidhi halkaas markaa qoraalka wax weeyaan uu soo weynaaday qoraalka laftiisa waxaan ku sameynayaa padding waxaa leeyahay markaa padding constant edge insert meelahaasi aan ka dhigo state deedna markaa save garayso hareeraha markaa wax weeyaan uu kasoo durkayaa I think weliba yaanu saas dhan usoo durkino 4 aan idhaahdo sawirka waxaan ku sameynayaa markaa isagana widget kale aan sii dulgelinaya waxaa leeyahay wrap waxaa leeyahay clip react deedna markaa waxaan sameynayaa border deedna waxaa leeyahay markaa border radius dot circle-kiisa meelahaasi isagana aan 4 ama 6 meelahaas aan ka dhigo deedna hareer waxta kasta markaa uu kasoo kadgaraysnaaday sawirka laftiisa waxaan leeyahay fit waxaan leeyahay comma fit waxaa leeyahay markaa box fit dot cover I think container maaha cover aan idhaahdo way sawirka haddaba iyo qoraalku hadda hoosta iskaga jiraan qoraalka iyo sawirkan kala fogeeyo title-ka iyo subtitle aan u sameeyo matalan laymiska oo kale mikano kale waxa waa ciwaan kana waa ciwaanada qaar marka aad u dhaadheeraanaya marka si aan u simo ciwaanada ugu horeyn horta waxaan leeyahay column-kan ay ku jiraan waxaad igu sameysaa baan leeyahay padding marka padding dhinac kasta aan ku soo sameyn waxaan leeyahay edge symmetric horizontal-ka 20 kaga soo samee marka qoraalka waxaad ka soo kayra durkay ciwaanada yaani maximum ka dhaafin baan leeyahay kana waxaan leeyahay comma maximum lineskiisa sida default-ka yaani laba dhaafin marka dhammaantood wada laba line bay noqonayaan style-koodina markaanu sameeyo waxaan leeyahay style google fonts dot farti loo yaqaanay space waxaan leeyahay marka font size meelahaas aan idhaahdo 16 or 18 font weight dot ball waayay haddaad save garayso kaasna waxa weeyaan ciwaankeena saasaynu ka dhignay waxaan oo raacay markaa inaynu qoraalkii hoose subtitle-kii isagana aan raacino markaa qoraalkan hoose isagana aan raacino waxaa leeyahay markaa textigaas kaas waa intaas kalabaadna waxaa leeyahay markaa waa texti isagana waxaa leeyahay waa daatada soo akhristo indexka kusii hoos jira deedna waxaa leeyahay markaa description laakiin description-ku nal yaanu marnaanin style-kiisana isagana waxaa leeyahay markaa text style waxaa leeyahay font size meelahaasi 10 I think 11 baan ka dhigayaa color-kiisana waxaa leeyahay markaa colors dot gray dot shading-kiisa 500 baad save garayso farti aad bay khafiif u tahay weliba markaa yara weyneeyo 500 kan kasii kordhiyo idhaahdo 600 okay markaa maximum line-ki way kala badnaanayaan isaga laftiisana idhaahdo maximum line kana horta hoos soo dego waxaa leeyahay maximum line 3 lines aan ka badnaan waayay kooxda arkaysa markaa 3 lineski ayuu ku fadhiyaa newski markaa waxaad arkaysaa newski wuxuu kasoo akhrisanayaa internetkii matalan isdeer real markaa qoraalku waa website-ka laftiisa ayuu kasoo akhrisanayaa news markaa dhaato dhan wax weeyaan waynu haysanaa inta waxay noo sii raacayaa haddaynu design-ka dib u eegno markaa kanoo kale waad raacin kartaa outerka oo kale waad raacin kartaa haddaad u baahato laakiin inaga too much inaan kasii dhigin waxaan intaa ku daraynaa okay waa si fiican markaa wax weeyaan dhaatadii newska oo dhan uu soo akhristay waxaan markaa samayn doonaa page kale oo loo yaqaano details oo marka lagu sii dhufto waxa weeyaan uu ina geyn doono markaa page-ka detailska loo yaqaano waynu ka gaarsiin doonaa maadaama time aynaan haysanin markaa waan sharxi doonaa ugu horeyn intaynaan markaa detailska aynaan sharxin waxaan doonayaa list view builderka marka lagu dhufto waxaa leeyahay markaa never okay list view-gan containerkan haddii lagu dhufto waxaa leeyahay markaa click waxaan ku sameynayaa markaa
gesture detector kii waan ku samaynayaa haddii kaa lagu dhufto on tab haddii la doorto waxaa leeyahay markaa navigation okay navigator dot push waxaa leeyahay markaa contactska waxaan ka dhigayaa material markaa ha tagaan doonaya material page road ka tago waxaa leeyahay markaa builderskana soo masaxo contacts way markaa hadda baynu soo koobisana codeka already hore inoogu diyaarsan markaa waxaan samaynayaa view right click waxaa leeyahay markaa details dadna waxaa leeyahay markaa dart markaa details page kan soo koobista codekiisa tushumi markaa ka sharxi doona waxaa leeyahay markaa details page ka control v details page ka muxuu ka kooban yahay waxaa leeyahay kan soo akhristo news provider intaas isbedelaysa horta inaan markaa sharxin aan save gareeyo details kan aan kusoo noqdo markaa waxaan leeyahay okay haddii lagu dhufto ha tago halkii ha tago details page ka tago markaa details page kun wuxuu kaaga doonayaa index dadna dib aan markaa imkaan restart gareeyo waa idhaasi uu baadhay loadingkii uu soo sameeyey matalan kanoo kalaad ku dhufatay waxaan abal top is 1 million developers in India click baan siinay waxaan markaa sawirkii titlekii iyo descriptionkii wax weeyaan sidiis ayuu markaa soo akhrisanay newskii from internet ka soo akhrisanay matalan here the class halkaas markaa symbol si fiican markaa soo akhrisanaya hadda ku dhufato kanoo kale wax weeyaan social media shut down by the new owners way markaa kanoo kale markaa dhammaan newskooda wax weeyaan si fiican buu shaqeynaya haddii markaa detailskan sharaxno markaan nimaadno xagga sare wax weeyaan waxaan ka dhigay horta kow waa riverboard baynu ka dhignay data details page kii data soo akhrisanaya news providerkii scaffold dadna upbarka dushii sare ayaynu sameynay ilaa halkan kusoo jooga markaa dush sare kii sarun bay la midi ay ka siman yihiin waa labada icon button elevationkii intii caadiga ahayd way bodiga dadna nimid bodiga wuxuu ka kooban yahay daatada inuu akhristo markaa waxa weeyaan riverboardkii wuxuu tijaabinayaa data miyuu hayaa haddii data meesha ay taalo la hayo waxaan waxa weeyaan column-ka loo yaqaan widget baad sameynaysaa column widgetka maxaa soo sameynaya image network waa sawirkan weyn inuu meesha qabsado baarin haddana hareeraha waa inaan kan kasoo durkaa marka wax la waa inuu soo qabsadaa tagasti oo qoraalka loo yaqaano ciwaankiya isagoo kasoo aqsanay get index.title ka ku xigaan waxa weeyaan labadan line kale waxa weeyaan waa short waa description-kii iyo content-gii inuu israaciyo halkan kale waxa weeyaan haddii cilad ay timaado haddii loading uu dhacay intuu dhacayo kuwan kale waa button navigation bar marka simple aad buu fudud yahay marka waxa yiri ugu dambeyn waxa requirement ah inuu get index-ka la soo geliyo marka dashboard-ka lagu soo dhufto mid kamid ah index-kiisa ayuu akhrisanaya dadna page kale u keenaya marka plugin waxa jira extension fara badan inaan isticmaalno tusaale ahaan cache mid loo yaqaan image cache ama network cache image loo yaqaan oo kale oo runtii sawirada marka soo load garanaya inaga caawin doona isku soo wada dhex qaadi mayno waxaan doonayaa marka inaynu insha Allah midba gooni aynu kala saarno haddii meelaha qaar aad sii xiisaynayso doonaysid wax weeyaan si deeply aynu uga warrano insha Allah comment-ka noogu reebi doontaa laakiin application-kani waxa weeyaan waa news dhammaystiran oo wax weeyaan marka tusaale ahaan haddii API-gan ku noqdo API-gii link-ka hadaan gebigiisa baan soo wada koobiyeysto markaas aynu isku barbardhig u sameeyno matalan waxaan imanaya control v dad search gareyso data waa kan ku soo dhigaya article-ka ugu horeeya waa maxay matalan waa Netflix buu ka warramaya experience issue with love spleen okay keenana muxuu ka warramaya Netflix buu ka warramaya hadalka Netflix issue with love laakiin sawirka image URL-kiisa waa maxay waa null oo bila sawir ka ku xiga hadda timaado article-ka labada ku xiga isla waa Netflix buu ka warramaya ka saddexaad hadda tagto waxa weeyaan Apple top buu ka warramaya 1 million developers halkaas kana waa kii labaad kii kalena waa halkaas waxa weeyaan waa Apple top 1 million marka qaabkaas ayuu waxa weeyaan uu u shaqeynayaa ama loo soo akhrisaado isticmaalaya HTTP Riverboard JSON serializable waxaas loo isticmaalaya API kasta qaabkaas ayaad u soo akhrinaysaa marka insha Allah iyadoo fudud oo faahfaahsanna 10 dhammaan insha Allah ka warrami doonaa intaas kale tagayna wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh